ma dhici kartaa in dagaalkan Iiraan ee imika socda dartii uu Maraykanku isticmaalo hubka nuclear-ka? Haa, waa macquul in Maraykanku uu Iiraan u isticmaalo hub nuclear ah. Laakiin hubka nuclear-ku isticmaalaya maaha kan waaweyn ee maaragtay atomic bombka ama maaragtay hydrogen bomb. Waxaa dhici karta in Maraykanku isticmaalo maaragtay tactical nuclear wax la yidhaahdo oo ah maaragtay nuclear saameyntiisu kooban tahay oo maaragtay meelo kooban iyo deegaano kooban keliya tay ku koobayso. Laakiin maxaa keeni kara in Maraykanku uu isticmaalo hub nuclear ah? Su-aasha muhiimka waa taa. Maraykanku haddii maaragtay ay Iiraan ay qaadato tallaabo ah inay burburiso maraakiibta xambaarayaasha ah Maraykanku leeyihiin gobolka ku sugan, arrinkaasi Maraykanka waxay ku keeni doontaa in Maraykanku uu dareemo bahdil la mid ah kii uu maaragtay Maraykanku dareemay sanadkii 1941 kabacdi markii ay Jabbaan weerar ku qaaday base weyn oo maaragtay ciidamada badda ee Maraykanku ay lahaayeen gebi ahaanna ay burburisay, taasoo markaas ay Jabbaan waqtigaas filaysay in maaragtay arrinkaasi uu Maraykanka ku keeni doono inuu is dhiibo, balse Maraykanku uu qaatay go'aan taas ka duwan oo ah in maaragtay uu Jabbaan ku garaaco hubka nuclear-ka, taasoo ku kaliftay markii dambe Jabbaan iyadu laftigeedu inay is dhiibto. Haddii markaa Iiraan maanta ay qaadato go'aan ah inay dejiso ama quusiso maaragtay maraakiibta waaweyn ee xambaarayaasha ee Maraykanka, Maraykanku wuxuu dareemi doonaa bahdil iyo in maaragtay quwaddiisii awooddiisii la yaraystay, taasoo maaragtay possible ka dhigi karta ama suuragal ka dhigi karta in Maraykanku uu isticmaalo hub nuclear ah, maaragtay tactical nuclear.